magacayga waa Axmed Macalin Ducaale waxaan ahay chairmanka beesha Samawadal meeshan presska maanta annaga iskugu yeernay annagoo beesha Siinwaaq iyo Samawadal leh waxaan aad u cambaareynaa dhici foosha xumay oo ayaan dhud burra iyo masalani ka dhaceen waxna lagu aqaani jiray ma aha qabiil waxaan ahayn qarane oo martidooda iyo baadidooda beelahooda ilaashan jiray wax marti baa nala soo dersay waxaan qalqaalaheeda wax ku lahayn ma aha wixii dhacna aad baan u cambaareynaa waxaan leenahay dadweynaha iyo khaasatan haweenka dhalinyarada waxa ceenkaas oo kale halaga waantoobo ninkii dhagaxa lagu tuuray waa ninkan filanayn inuu noqonayo madaxweynaha Kenya dantii aan u sheeganay annagoo dhibkeena xad dhaafay waan gudbini waynay meel buu ka dhashay madaxweyne wax looguma sheegan karo bari ka maalina waxa ku qabsan doontaa war shalayba markaan warkaa qorani rabi dhagax baad igu tuurtay maan sideen ku fahmi rabaa markaan waxaan leeyahay dadweynaha reer Gaaris khaasatan beesha burra iyo masalaan iyo balanbala degto iyo madoogaashe iyo dhadhaab si nabadgelyo kuraha lagu doonto si naxariis kuraha lagu doonto kuraha muddadiisa wuu yar yahay qarannimadeena iyo deegaankeena ayaa ka qiimo badan kuraha wax badan aan dad soo dooranay wax badanna ku aan soo dooranay waan ka calacalnay laakiin annaga baa isku harnaa waxaan leenahay ummadda nabad ha loo horseedo dawladdana waxaan ku leeyahay arrimii dhaceen ha la baaro annaga dad maxkamad ha la keeno malihin laakiin waxaan leenahay wacyigelinta ha la badiyo ummadda ha loo sheego dhagax kure ma aha dhagax waa salaaxad ninku ku dhacona wuu dili karaa waxaad ninka aad ooga aarsan kartaa kurahaada meeshaad rabto ku rido laakiin rabshad iyo qayli iyo naceeb yaanan ummadda lagu beerin waxaa weeyo sida uu chairmanka yiraahday sidaasaan isla qabnaa waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo qofkii raadsani kuura inuu si fiican ku raadsado qofkii supporter inuu sidaas u ahaado qofka uu dooran rabo uu jecel yahay uu kuura u raadiyo nabadgelyo ugu raadiyo arinta ayada dad oo makasaa sameeyeen wax cid ku tashata ma ahayn wax qabiil ku tashada ma aha wax madax baangaysa ma aha annaga sidaan qabno hadduu jiro qof ka dambeeye dib iskugu noqo kuurahaada nabadgelyo ku raadso sidaasaan leenahay annaga walaalaan nahay khasuusan labada qoys walaalaan Siinwaaq iyo Samawadal waxaa weeyo ninkii madaxweyne dooran madaxweynahaada tartiib u dooro ninkii doorani sanahaada tartiib u dooro governor ninkii dooran tartiibtaada bunge saasoo kale county rep saasoo kale waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo 40 bari baa ka dhiman waa wax yar oo dhammaan dadkan sidan buu ahaan walaal baa la ahaan intaasoo doorashaan soo marnay wixii dhaa hore dhaco kale inuusan dhicin raaligelin baana ka bixinaynaa annagoo af telemugo ku hadlayno qof walbo oo ka xumaaday inuu ka raali ahaado dawladda dadweynaha intii ay khusaysay ilmihii wax sameeyeen kuwa annaga unbay ahaayeen marka hortaanadana odayaal badan baa ka hadleen masalaani baa laga hadlay 2-3 jeer annagana maanta Gaarsaan ka hadlahaynaa marka sidaasaan chairmankan gacan ku siinaynaa security-ga dawladana waan la hadalnay waan u sheegnay midko inaan nahay nabadgelyo inaan ka hadlayno wax dhib inuu jirin qof wax u qabo qof kale inuu sa jirin sidaa ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ahay odayaasha ogaadeen Talamuga Gaaris ayaan ka mid ahay anoo codka ogaadeen ama Gaaris ama Talamuga ku hadlaayo maanta waxaan ka warbixin haynaa on aad ooga xunnahay arrintii burra iyo masaani ka dhacday wax loo tashaday si duqoobda hore dhaheen wax loo tashaday ma aha wax lagu talagalay ma aha laakiin waa dhacdooy weligeedna way dhici jirtay waa adduune waxaan meel aan lagu talagelin wuu dhici jiray arrintaa waxaan ka rili gelinaynaa
madaxdii joogtay iyo wixii dhacay ma qabno talamuga ma qabo ogaadeen ma qabo reer gaaris ma qabo muslin ma qabo hataa kristoon ma qabo waa wax iska dhacay mana loogu noqona insha allahu midaas aad baan u cambaaraynaynaa intay joogto oo madaxina waa ka rili gelinaynaa annaga odayaashii talamuga aan meeshan ku fadhino nabadeey xumaan ma jiro guriguu fidsanya guraag nabad ha noogu dhaco sidaa wax ku dooran jirna aan ku dooranno odayaashaan la qabaa hadalkayga waxaan ku soo kooba war ninkii wax dooranayo wishbeenna ha noqdee nabad ku dooran nabadaa ku deeqiye midda koowaad wixii dhacay horta waan ka xunnahay haddaan dad reer Kenya aan nahay dad wax dareemi mas'uuliin aan nahay nin kasta oo mas'uul oo Kenyaan wixii meesha ka dhacay waa wax laga xun yahay wax raali laga yahay ma aha qodob waa qodobkaas qodobka labeeyo oo mujtamaca aan oo baaqi maxaawaye mukaafaxatul fasahaadka in laga hortago mukaafaxatul fasaad maxaa la yiraahaa ka hortagga xumaanta wax markuu dhaco in la daaweeyo ma aha asoo umaanin waa in laga hortago waatan odayaasha iyo mas'uuliintan ka hadlayaan ilaahayna muxuu yiri walaa tufsiduu fil ardi ba'da islaahiha arlada ilaahi in la fasahaadiyo ma banaano maxaa fasahaad noqoni shan qodob oo weyn midda koowaad maxaa way ammaan hadii la waayo fasahaad baa dhici meel lagu tukani ma leh meel akhris lagu aadi ma leh wada la mari ma leh nin walba shakhsiga wadada iyo dhulka iyo cirka cariir ku noqonaya sidaa darteeda waa in amniga lagu dadaalo nin walba meeshuu joogo midda labeeso oo keenaysa fasahaadka maxaa way oo maartay muxuu xun ayadana waa xasidnimo ma fiicno wadanka maxaa ka socotaa isbedel kuuraad dhiciya ilaa gambarku rabo ha ahaado jinsiyadu rabo ha lahaado ninka kuurahaada sida odayaasha iga horeeyeen ee sheegeen kuurahaada ninka adi u maleeso inuu mas'uuliyadda qaadi kara siiso xasidnimo iska dhaaf midda saddexeeso fasahaadkeeni maxaa way namiimnimo ummadda in loo kala sheekeeyo ma aha wax magaradka in loo sheekeeyo wax loo sheego ma aha sidaa darteeda namiimnimada ilaahay waacay وليد بن مغيرة سقال صفاء بو إلهي كشاقة هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم بإلهي كتلنامه نن الله ننكن نميم لك شاقة آركتين وليد بن مغيرة شبهها سيدا درت هذا نميم نمضى محيكمتها هاي وحيالها كين أمن الدرهدة يفسهاتك وإني لغوها ارتقصي ولا جرعه قلبك كلام حاوي هدي انتاس نميمنimada ay socoto xasidnimo ay socoto amniga la waayo maxaa imaanin waa qodobka afraad naf inay go'do nafaguy wala dhimani gacantada ruux u dhimani way marka muxuu ahaa bini aadamka xaq dar in lagu dilana ilaahay waa reebe ilaahay naf in la gooyo abriye waa diiday qodobka dambeeya maxaa way u dambeeya shanaad hadii amni la waayo namiimna la reeb waayo namiimnima la reeb waayo xasidnimo ammaan la waayo maxaa imaani almaalu maalkan inuu baabao guryaha la gubi sama guryaha la gubi xoolaha baa la laayni marka sidaa darteeda maxaan baaq oo u direynaa dadka reer Kenya meel joogaanba khaasatan Garissa County-ga haddana meelihii amaakinta dhaadheed wax ka dhacay maxaan leenahay nabadda ha lagu dadaalo nabad baa naas la nuujiyay bay odayaasha dhihi jireen sidaa darteeda nabadda walaalayaal ha lagu dadaalo annakana biidnillaahi albaari hadday ninkaax tahay hadday tahay masaajidka hadday tahay baareedka madaarista iyo meesha wax amaakinta waxbarashada iyo meelaha qabuuraha ee ilaahay maartay buddaha noo kala dheereey odayaashaas ay dhihi jireen waa laga sheegayaa nabadgelyada iyo wixii maslaxada ummadda u nabadda waa inaan lagu dadaalo dadkan ma oo dadkan uu sheegino waa dadka ee media ay gaarsiin doonaan marka inta hataa dadka mas'uuliinta soo galaya ee kuuraha doonan iyo kuuraha hadaa ku raadiso dhinac fasahaad mujtamaca Kenyaanka uu ku arkaya dadka doorashada ka rabto way ku arkayaan marka nabadda ha lagu dadaalo hada billahi tawfiiq